ومحاط كفريسة ناضو سوق بصدق بصدق والله سوق ما كان سيتري البيالو بس محال داعي بصدق بقى عنتيتري بصدق ومحمد مسكين عالم الضاتي ومحوق وحي الصيام همبايه انتي قول ريسي تطبض الله كمدي وحي لهاين وان سوق قابل ان هذاك ورا وان صور ديرين يا شغل هو هذا له افالك لهان marka u horeysa waxaan jecelahay in halkan waxaan baliyeeyo sagaal guuladeeda oo ay ka soo qayb galeen intaas oo sharafri bal dhageysta hadda ama halkan waxaan marti qaadaya hadii ilaahay idmo oo aan xafladooda kharashkeeda bixinaya hadii ilaahay gaarsiiyo 2045 intiina hadda ay maqlaysana casuumaada waa ka soo qayb galaysaa hadii midii naga mid ah tii Allah u timaado sadaqaynu ugu bixin doonaa casuumaada haddii aniga taydu timaado oo aan dhintana bal waa dhimanaya waa ayaa daradiina haddii aynu wada gaadhno kulligeen halkan iyo idinkubana muddo kordhintu way bannaan tahay muddo kordhin intaas waa kabtankaydii haddaan idiin sii raaciyo 10 yar baan jecelahay inaad isiiyo hadalka shaqadayda hadalka aynu ku hadlayno hadalka aynu isku maqlayno hadda ayaa idin sheegay inta qaybood uu qaybsamo waa afar hadalku mid waxa la isla hadal ilaahay nuguma keeno oo waa dadka xanuunsanaya ee maskaxdu isku darsantay waa isla hadal midna waxa la yahaa kala hadal ilaahay nuguma keeno waa siyaasiyiinta isna ilaahay caafimaad siiya midna waxa la yahaa iska hadal oo waa qolooyinkan social media ku jira ee haddaanu reer hebelnahay haddaanu sanka ku dhegin waa iska hadal midna waxa la yahaa hadal oo waa ka hadda aan sheegi doono waan leeyahay halkan waa koox jirta shacabka aniguna waxaan idiin sheegayaa horta qolada jigjiga ka timi ee hadda martidayno ana waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin haddaan nagala soo qayb gaseen xafladan inankii xiriirinaya markii hore wuxuu yidhi fanaaniin ka timi Ethiopia markaa waxaan rajaynayaa ka turjumaani doona yaasimiin axmed yuusuf oo ag fadhida naasara kacoo ka turjumaan soo waabay nama ka yimi jigjiga maasha allah iyaga baab soomaaliga naga badiyo markaa waxaan moodayay qolooyinkii kale ee odamadii iyo baan moodayay jaarsadii iyo maxay ahaayeen xabashidii baan moodayay laakiin waa inagii uun waxaan leenahay marti ma tihidin walaalihiin baa la joogtaa haddaan yar idiin raaciyo been badan baa wax cunaysa noo ciyaaraysa midaan qosol u baahnayn aan yar iska qosliyo waxa la yahaa wax yar haddaad sawirtaan qadar dul qaadataan in yar adkaysataan allana yidhaaho waan hubaa inaad qosol dhiqlayn doonto sheekadan waxa la yahaa sheekadan waxa la yahaa waan silaanay waxaan leeyahay sheeka meel taabanaysa ha sheegnay waxa la yahaa hilibkii mee baa la yahaa hilibkii mee dadka inteena badan hadda Soomaalidu waynu hilib jecel lahay laakiin wadamada qaar buu macduum ku yahay hilibku hadda Masar oo kale hilib lama helo qofku wuxuu u urursadaa lacag si uu hilib u helo mar uu cuno nin wastaada oo dadka danyarta oo hilibka saruurada hayso saruurad oo aan hilib bariyaha dhadhamin ayaa qandaraas helay lacag fiican buu soo helay islaantiisii ayuu u dhiibay lacag markaasuu yidhi berito waxaad inoo soo iibisaa 3 kiilo oo hiliba nus kiilo idinku cuna 2 kiilo iyo badhna aniga idhiga islaantii hilibkii bay karisay yana saruurad baa haysay hilibkii markay dabka saartayba dumarkii jaarka ayaa yana siniintii uriyey way u soo wareegeen nahibla hilib baa karsanaysaan maanta dherigii baa la wada dul fadhiistay dhadhamaa lagu bilaabay si dhadhamada loogu waday ayaa la mariyey ninkiina wuu maqan yahay dumarkii iska tageen hal dhow buu yimi markaasuu yidhi naa hilibkii ii soo kor markaasay tiri hilibma yaallo bas maxaa dhacay bisadii baa cuntay tiri bisadii waa 3 kiilo bare moogtay hilibe
ninkanna ma doonayn reerkiisu inuu dumo beentaa inuu liqana wuu diiday bisadda ii soo qabo yidhi oo maxaad ku falaysaa na aduu soo qabo bisadda bisaddii baa la soo qabtay inakeen buu yidhi dukaan u dhow oo miisaan yaallo ayuu yidhi ii miisaan bisadda bisaddii baa la miisaamay waxay noqotay kiiliya badh iyadii buu soo ego isna hilibkii mee waxaan idin leeyahay halkan kooxdii jirta aniguna waxaan idin leeyahay waa maxamed miskiin caalamadaasi wax maxooga wixii la siiya mahambeeye saaxiibkeen weji oo idin leeyahay iid wanaagsan سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato